qalabka shaybaarka caafimaadka xoolaha ugu deeqday jaamacadda magaalada Burco munaasabadii wareejinta qalabkan shaybaarka caafimaadka xoolaha oo lagu qabtay howlka jaamacadda Burco ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka xanaanada xoolaha iyo deegaanka Soomaaliland Dr. Cabdi Awdaar Cali madaxda hay'adaasi maamulka jaamacadda iyo mas'uuliyiinta gobolka Togdheer gudoomiyaha jaamacadda Burco Cabdiraxmaan Jaamac Ducaale oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa si weyn ugu mahad celiyay hay'adda Jarmalka ee jaamacadda ugu deeqday qalabkan shaybaarka caafimaadka xoolaha kaas oo sheegay inay ka faa'iideysan doonaan ardayda kulliyadda xanaanada xoolaha ee jaamacaddu isla markaana yahay qalabkani mid u baahnaayeen waxa gudoomiyuhu ka codsaday wasiirka xanaanada xoolaha inuu gacan ka siiyo wax kasta oo lagu hormarinayo kulliyadda xanaanada xoolaha madaxa hay'adda Jarmalka ee VSF Master Michael Handers ayaa isaguna sheegay in muhiimadda shaybaarkan ay u keenayay sidii ay bulshadu u heli lahayd sax wanaagsan oo ay kaga badbaadaan nadaafad darrada wuxuu intaasi ku daray in qalabkan yahay mid casri ah tayadiisuna sareyso kaasoo suurtagelinaya inay Soomaaliland ka mid ahaato dalalka iska baari kara saxada caanaha iyo cuntada kadibna waxaan rajaynaynaa inaan u gudbino mustaqbalka gobolada bariga wasiirka xanaanada xoolaha iyo deegaanka ee Soomaaliland Dr. Cabdi Awdaar ayaa isaguna tilmaamay in qalabkan shaybaarku yahay mid waxtar badan u soo kordhin doona bulshada waxaana ka mid ah hadaladiisii waxaan mahad ballaaran halkan mar labaad uga jeedinayaa hay'adda VSF oo ugu wareejisay runtii oo ku wareejisay